السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. runtii tiiraanyo ayay nagu reebatay arrintii maalmahan ka socotay waddankan Sweden iyo dhammaan wadamada Yurub inteeda kaleba. walaalayaal diinta islaamka nimankan gaalada ee yahuudda ah cadawtinimada ay u qabaan haddaba sooma bilaaban. ilaahi subxaanahu watacaala asigoo noo sheegayo ayaa waxa uu leeyahay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an falaa tattakhiduu. ayad kale waxuu ku leeyahay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaare xataa tattabica millatahum. sinaba ma kaaga raali noqonayaan mana idinkaga shartadana aamin uga ahaamaysin ilaa aad ka martiin dhinacooda. muga walaalayaal dhibaatada ay ku hayaan kitaabka qur-aanka ee gubitaanka ah hadda sooma bilaaban. nabi maxamed sallallahu aleyhi wasalama ayaa wejiga canuuf looga tufay, dhinac casuumaad laga wacay, asigoo fadhiyo labisan ee dadka kale oo dhinaca kale fadhiyaan ayay waxay yidhaaheen ninka nabi maxamed la leeyahay iyo anuka gogol ma wada galno ee naga buubsha. waa la buubshay, weliba wejiga canuuf looga tufay, biyana waa lagu daadshay. mihii oo ku dhashay magaalada oo ku dhashay maka almukarama ayaa laga buubshay. dhibaato badan ayaa la gaarsiiyey. waata uu yidhi sabra aaliyaasirow abaalkiinu jirna ayuu noqon doonaa insha allahu. dadkii asxaabtii qayb ka mid ah hortiisa lagu birbireeyey, hortiisa lagu dilay. mug walaalayaal dhibaatada ay u qabaan ay noo qabaan gaaladu hadda ma bilaaban, wayna socon doontaa. waxaana anukuna kaga rabaa marka ka muslimiin ahaan diinta ayagu waa gubeen oo kitaabka waa gubeen ninkaaso. annagana waxaan u gubna si macno ahaan ah. run ahaantii kitaabka annaga horaan u gubnaba. kitaabka maanta lama gubin. kitaabka waxaa la gubay mugi baarlamaanku uu ku dhaarto dastuurka iyo kitaabka oo iskula dhaarto, mugaasaa kitaabka la gubay. maanta ma jiro wadan islaam ah ee shareecada islaamka 100% ku dhaqmo. hadduu jirna waa hal ama labo. waxaa lagu lifaaqaa qaanuun iyo daaguud. ilaahina waxa uu leeyahay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul. haddii aad wax isku qabatiin qaanuunka wuxuu ka qabaa xeer hoosaadka u fiirsha, odayaasha ha la warsado, xarafka b c ha loo damoodo. intaasoo dhanba nalama dhihin. fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul. waa dhammaata. haddii aad wax isku qabatiin ilaahay iyo rasuulkiisa waxay ka yidhiheen kitaabka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka hal xaba kama dhino. nolol dhammaystiran ayaa ku jirto. muga walaalayaal kitaabka qur-aanka inaan anunku gubnay ayay u eg tahay ninkaas ka hor. anunka horta aan ku dhaqanno inuu guryaha noo yaalyaalo ee guri walbo aad tegtid 5 kitaab iyo 6 kitaab ay suran tahay, mid ka midna aan la akhrin sax ma ahan. shareecada islaamka arkaan islaam in salaada la dukado, xajka la aado, ramadaanka la soomo, howlahaas kale way ka weyn tahay. intaas kaliya ma ahan. shareecada islaamka waxay ku amree cunugu mugow dhasho oo banaanka yimaado waxaa la dhegtaha looga aadimo, midda kalena looga aqimo, afkan waxooga dhalo macaan ah loogu calaanjiyo. mugo uu dhinto 60 ku dhinto, 70 ku dhinto, 90 ku dhinto. mugo uu dhintana waxaa la yidhi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah. mugo uu dhimanayo qofka oo naftu ay soo boodo waa in loo laqino, ashahaadka loo laqino. inta ka dhaxlay 60kaas sano tilaabo walba uu qaadayo qofku waxay ku qoran tahay aayadda. haddii aad mas-uul tahay sida aad ula dhaqmayso shacabkaaga aayadda qur-aanka ka helay. haddii aad xaakim tahay sidaad ula dhaqmayso dadka kuu soo aad u cadaalimo samayso ku imaanayo kitaabkii ku qoran tahay. haddii aad shaksi tahay sida aad u maamulay naftaada way ku taallaa. haddii aad reer leedahay sida aad u maamulayso waa ku taallaa. haddii aad madax fiiri wax walba oo tilaabo walba aad qaado waxaa ka dhexeeya kitaabka qur-aanka. laakiin maanta uma jeedno. maanta waxaan ka raadinaa nolol iyo naf, dimuquraadi iyo haddii alla ku roon yahay qaanuun shaydaan iyo wax gaala noo qortay. muga walaalayaal horta anunku aan nafteena ku dabaqna kitaabka qur-aanka. talabaadna habkii nabi maxamed asigoo sal slam asiga iyo abubakar iyo dad fara ku tiris ay islaam ahaayeen, habkii uu u gaarsiiyey diinta islaamka banaanbax mudaahara la sameeyo luga la guba ma ahayn. waxay aheeday inuu guri walba kitaabka qur-aanka la geeyo, lagoona dhaqmo, lana tuso dadka horta. muga dadka aan tusno, qof kastana aan barno diinta islaamka. mugi aan barno oo ay ku dhaqmaan dhibaatada way yaraaneen. laakiin qofka mugaad barayso waa in horta adigu naftaada ka bilowdo. dad badan oo dacwadda aniga aan u sheegon gaarsiiyey
waxay cilad iiga dhigeen idinka muslimiinta ah kuma dhaqatiin kitaabka idinkoon ku dhaqmaynina inaad dad gaarsiisiin qalada idinku taha waa sax ilan inaan anigu wax afa ka sheego ficilkeediina aanan la imaanin isma raacdo sax ma ahan muga waa in horta annaga ficilka kitaabka qur-aanka aan wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu inaan horta aayadda qur-aanka nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam lagu soo dejiyey waxa ayna amrayso horta inaan qaadano waxa inaga nahiyeyso ay naga reebaysana inaan ka leexano kadibna aan gaarsiino gaalada insha allahu tacaala maalin ay ahaataba waxaan rajaynaynaa ninkaas hadda kitaabka gubay in uu noqdo khaalid bin waliid waayo khaalid bin waliid muggo horo dhinaca muslimiinta ayuu wuxuu kusoo ahay weerar dhibaato badan uu gaarsiiyey kadib mugguu islaamana seeftiisiyaa la siiyey waxaa layidhi seefti dhinacan u waday dhinac kale lee u leex dhinac kale u jeedsa haddana mugga waxaan rajaynaynaa haddii ilahi subxana watacaala uu khayr la doono inuu khaalid bin waliid inooga dhigo haddii uusan khayr ilaahay la doonin inuu shartiisa ina dhaafiyo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu ramadaan mubaarak